の皆様、今夜は豪華客船で盛大なパーティーを開催いたします。tartanka wuu dhammaaday xalfadda ayaa bilaaban doonta gordhow saaxiibkeenan asad laki ayaa waxaa kaa wadaa fariin teeri wuu baxay markuu tartanka socday hadeertaana fariintan adaa kuu sidaa hey xaggee u soconnaa micnaa xaggee aad rabnaa Angelina! maxaa u samaysay sababtoo ah qof aan aad u qiimeeyo waan jeclahay ayaad tahay waxa ahay nin soo saaristiisa ay badan tahay dhaqdhaqaaqiisana uu badan yahay markii hore nasiib ayaan ka badbaaday marka anaga niyadda ma naga saartay Bastrio ma waxaad umalaysay inaad iga awood badan tahay iska keedhay haddii aan warku dhashay istag markii hore waxaad ii soo weerartay sida cunug yar oo ahay camal oo markaad ii soo weerartidba oo aan jabay oo iyagu ay qabanaysa waxaa xaqiiqa ah oo ii muuqatay in waqtigaagu halkan uu egyahay kiis waaba iska sii hadle anaa hadda ilkaa kaa jafayso inaa horteeda si raaxa leh uma tidmaro waxaan rabaa inaad dhiiggaadana ku qurayso hilbaadana middaasi awooddeeda ma lahaan karta xitaa maahan inaad ku fikirta adiga inaan nolosha kuga cadaabayni hore ayaa balan ugu qaata aabbo ugu dambeyn xaqaaga waa kuu soo dhiciyey ilama ahanna dhammaad ka gaarin annaga waa runtaada ma gaarin weli
haye bajaqda adiga miya waxaa isdhaha islaanta waa ilaawi laakiin indhaha quruxda badanaaba la ilaawi karinbo siki adeerkaaga aa kaa doontano dhankeyga usoo siko markasta indhahaga arko warwareera anaan dareenka ku qadam arkaysido yuraa lagu yiri waxaa ku hadloosid horta ma taqaanaa dareenaa kuu qaado kulahaa wuxuu ku hadlaya fiiribal yaanan fududaanne adii walaalkay haddaay maxaa ka sheekeysanayseen haddaa shabaqa kusoo dhacda arrimahaaga leeno inuu maali ku waalanooyo waa fahantay yarta haddii uu maali gacanta kugu dhigaa runta duni waalana gelay baaba abba walaashii cuntada adaa kugu talgalay waa ii fududaysadee anna waxaa maanta dhan ku daalaya hal maraa ii keentay mahadsanid walaalkay waxaa ku wadina ninka dhinaga taagan dhaxsur maxaa ka dhiganaa kiraa lagu yiri anuu ku maqlooya anaa meeshan kaga soo rima dhaxsuri dhaade saka quruxna ma jeedid miya wax loo dul qaadan kara maan haddii farteeda laabad wax badan burburisa carbartaa soo dhaaf taawo waa kasa ninkan inta badan waxaa loogu yeeraa xarafka raaqeys ahaantii wuxuu qabtaa howlo fara badan ninkan isha gaduudan leh dhab ahaantii mar walba lama arko laakiin wax walba kor ayuu kala socdaa waxayna xirfadiisa tahay inuu jadwalka maskaxda qof walba uu wax kala geliyo isagu waa dagaalyahan waa ninka qabanqaabiyey tartanka koofa weli wax guula muusan gaarin weli wuxuu awood ku haystaa jinka origi wax walbana jinka ayuu ku xaliyaa waxaan ku weydiinayaa giis ninkan miyuu u shaqeynaya maya laakiin giis waa la duqamaysanaya khiyaano waa loogu daray keliya giis iyo ninkan shirka ayay ahaayeen giisna sharwadiis waxaa ka mid ahaa qofka amirkiis qadan wayno hadda maxaan samaynaynaa giis waaba dilnay ninkan cusubna muxuu yahay ma haysaa warbixintiisa buuxdo sida hore kugu sheegay ba 6 bil ka hor ciidamada militariga Amerika ayaa soo dabgal anigoo wata sunta alaabta madow giis markuu iga qaadanaya inuu wax kale u isticmaalayo umlinay laakiin waxa ogaada ninkan uu gudbiyo wax oo dhan hadda giis waxa ka qatarsanba ninkan hadda alaabtiis gacanta ay ku jirto hadda waxaa niyadeeda ku jirta 90% inoo rabo dadka noolaayo oo saameyn ku sameeyo waxayna saameyn ku yeelanaysaa alaabtaas dawladda iyo hareeraheedaba sidoo kalena waxay maskaxdiisa bedelaysaa kuwa daroogada isticmaalaan wayna dhimanayaan haddii ay iska joojin waayaan waana xaqiiq muuqato oo cad oo aan indhaha ka dabooli karin annagoo idil laakiin wax u baahanna maali sidii wax ka yihiin